السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة فيليبس waa shirkad Hollandeys caalami ah oo farsamaysa agab korontada ku shaqeeya. Xarunteedana waa magaalada caasimadda u ah Netherland ee Amsterdam. Waxaana ka shaqeeya shirkadani Philips in ka badan 120,000 oo ruux. Waxaan muuqaalkani ku soo bandhigi doonaa shirkadani guuleysatay shakhsiga aas-aasay fikradda lagu abuuray ee taariikhda dheer ee xambaarsan dadaalka weyn ay qabteen aas-aasaha shirkadda iyo shaqaalihiisa. sanadkii 1891 ayuu wiil dhalinyaro ah oo Hollandeys ah laguna magacaabo Gerard Philips aas-aasay shirkadani maanta caanka ah dunida ee Philips. waxaana garab weyn ku siiyay in uu Gerard abuuro shirkadani hooyadii oo ahayd maamad taajir ah dhankalna ahayd tumaalad ku wanaagsan farsamaynta laambadaha iyo guud ahaan agab korontada ku shaqeeya. Gerard ayaa ku ta'afuray aqoonyahankii ikhtiraacay nalka ee Thomas Edison. xilligaasi waxaa dunida ka bilaabatay farsamaynta iyo iibinta laambadaha. Gerard ayaa go'aansaday inuu iibsado warshad ku taala magaalada Eindhoven kadibna uu dib u hagaajiyo si ay u noqoto warshad soo saari karta laambadaha iyo agab kale ee korontada ku shaqeeya. laakiin wuxuu la kulmay tartan adag waayo suuqa waxaa la joogay shirkado soo saara laambadaha. si uu ugu adkaado isla markaana uu gaaro guulo degdeg ah ayuu go'aansaday Gerard in uu soo saaro laambado badan isla markaana qiimo jaban. waana u suuro galay hiigsigiisii. laakiin waxay ku sigatay shirkadiisa in ay suuqa si degdeg ah kaga baxdo. mana hayo Gerard fikrad wanaagsan oo ku badbaadin karo shirkadiisa curdanka ah. maalinta ka dambeysay shirkad hoos ayay u sii socotay. Gerard uu wareersan yahay ma garanayo wax uu sameeyo. laakiin nasiib wanaag waxaa ku soo biiray shirkadda isla markaana wuxuu u qabtay weelkii ka yar ka oo lagu magacaabi jiray Anton Philips ka oo noqday suuqgeeyo ku wanaagsan iibinta waxyaabaha ay soo saarto shirkadda ilaa markii dambe shirkadda ay ku soo laabatay sidii caadiga ahayd. dhan kalena ay soo kordheen dalabaadka taas oo Gerard ku qasabtay inuu aasaaso shirkad kale oo hoos timaada shirkadda Philips isla markaana soo saarto macdanta laga sameeyo nalalka. muddo yar kadibna wuxuu haddana ku dhaqaaqay abuuridda shirkad saddexaad taas oo soo saarto quraaradaha laga sameeyo laambadaha. muddo yar kadibna wuxuu sameeyey shirkad afraad oo ayadan hoos timaada shirkadda weyn ee Philips taas oo farsamaysa agabyo badan oo elektaroonig ah isla markaana kala duwan. shirkadani afraad ayuu Gerard guulo mugle ka gaaray. dhan kalena xusankii 1914 aas-aasay xarun cilmi baaris oo hoos timaada shirkadda Philips taas oo suuro gelisay inay bulshada caalamka u soo bandhigto ikhtiraacyo gaaraya 100,000 oo hindisooyin cusub ah. Gerard ayaa dagaalkii koowaad ee adduunka ka dhaxlay fursad dahabi ah taas oo ahayd in ummadda ku nool qaaradda Yurub diideen in ay iibsadaan waxyaabaha ay soo saaraan shirkadaha Jarmalka. taas oo Gerard u suuro gelisay inuu ka faa'iideysto suuqa laga diiday agabyada ay farsameeyaan shirkadaha Jarmalka. wuxuu kaloo ikhtiraacay nal qaab casri ah u samaysan ka oo Philips ka heshay faa'iido badan. sidoo kale waxay shirkadda hindistay aalad casri ah taa oo ciidamada dagaal ku jira u fududeynaysa in ay si sahlan ku wada xiriiri karaan taas oo ayadana dalabkeeda maalinta ka dambeysa uu soo badanayay isla markaana shirkadda ka heshay faa'iido badan. sidoo kalena ka dhigtay shirkadda mid caan ka ah dunida. sanadkii 1939 oo ku beegan bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka Gerard wuxuu go'aansaday inuu ballaariyo shirkadiisa isla markaana uu ku soo kordhiyo agabyo cusub. waxayna shirkadda soo saartay mishiin elektaroonig ah oo timaha lagu xiirto. muddo yar kadib dagaalkii labaad ee adduunka ayaa kululaaday. wuxuu naasigii Jarmalka weeraray dalka Holland oo ah waddanka laga leeyahay shirkadda Philips taas oo keentay in xubno ka tirsan qoyska Philips u cararaan dalka Mareykanka. laakiin qaar ka mid ah qoyska waxay joogeen gudaha dalka ayagoona shaqada si gaabis ah u waday. markii uu dhammaaday dagaalka dhammaan xubnaha qoyska waxay ku soo laabteen dalka ayagoona furay warshadihii ku xirmay dagaalka. Philips ayaa ikhtiraacday aalad ku shaqeysa shucaaca iyo aaladda radaarka ka oo ku suuro gelinaya in aad meel fog ka aragto diyaaradaha. waxyaabaha ay ka samaysay shirkadda Philips radaarada leh shaashadaha ayaa u suuro geliyay inay shirkadda ka farsamayso TV ka oo sanadkii 1949 ka heshay shirkadda faa'iido xoog leh. wixii ka dambeeyay sanadkii 1963 waxaa caalamka si xawli ah ugu faafay aaladaha wax laga dhageysto ama laga daawado. waxaana sabab u ahaa arrinkaasi shirkadda Philips
isla markaana bulshada caalamku nool isticmaalayeen ayagoo aanan bixinin xaqa adeegsiga, taas oo keentay in aaladda kaaseetka si xawli ah ugu faafto dunida, isla markaana shirkadda ka hesho faa'iido xoog leh. kolkii hore kaaseetka waxaa loo adeegsan jiray in lagu duubo codadka shirarka muhiimka ah, laakiin horumar degdeg ah iyo tayeynta aaladaha wax lagu duubo ayaa sababtay dadweynaha in ay bilaabaan in kaaseedyada ku duubtaan heeso kadibna dhegaystaan, taas oo shirkadda Philips ku dhiirigelisay in ay isku dhejiso kaaseetka iyo raadiyaha isla markaana soo saarto waxa lagu magacaabo micro cassette. laakiin shirkadda aaladani dambe wax guul ah oo la sheegi karo kama gaarin. waxaa sii socday horumarka dhanka tiknoolajiyadda oo waddanka Ingiriiska ayaa ikhtiraacay sanadkii 1972 aalad awood u leh in ay duubto cod iyo muuqaal wada jira. arrinkani wuxuu dhacay ka hor inta shirkadda Sony aysan soo saarin nidaamka Betamax. kadib shirkadda Sony waxay la timid nidaam kale oo loo yaqaano VHS, laakiin shirkadda Philips ayaa ka shaqaysay nidaam kale oo sahlaya in aad duubto cod iyo muuqaal isla socda. laakiin Jabaaniiskii ayaa hormariyay nidaamkoodii ahaa HVS, isla markaana suuqa ku soo fasaxay ayadoo qiimo jaban, taas oo ku qasabtay shirkadda Philips inay isdhiibto isla markaana isticmaasho nidaamka HVS kana tagto nidaamkii ayadu hindistay. sanadkii 1982 dunidu idil waxay sugaysay soo saaridda CD-ga ka oo ay ku dhawaaqday shirkadda Philips, ka oo ku shaqayn doona qaab casri ah marka loo eego canjaladaha fiidiyowyada ee xilligaasi. laakiin xaqiiqada CD-ga waxaa la soo saaray ayadoo la kaashanayo shirkadda Sony ee Japan laga leeyahay, kadibna waxaa ka daba yimid DVD-yada. shirkadda Philips ayaa kolkii dambe xoogga saartay farsamaynta agabyada caafimaadka. shirkadda ayaa aasaastay naadiga Eindhoven oo ah naadi caan ka ah gudaha dalka Holland, waxayna shirkadda bixisaa dhammaan qarashaadka ku baxa naadigani. dhanka kale waxaa lagu tiraa shirkadda Philips mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan dunida ee ka shaqeeya dhanka tiknoolajiyadda, ayadoona sanad walba soo saarto agab badan oo elektaroonig ah, wuxuuna ku dhaafiyaa raasumaalka shirkadda $50 bilyan.